بسم الله الرحمن الرحيم. أنا maanta waxaan rajeynayaa inaan ku bixi doono safar Muqdisho ah. Markii ugu horeysay inaan safar booqasho ku tago magaalada Muqdisho intii la qabtay magaalada Kismaayo. Waxaan rajeynayaa inaan dhammaystiri doono heshiiskii Addis Ababa. Safarka loogu muhiimsan oo noqon doono dadkii reer Jubbaland ee xalar jooga. inaan soo qaadan doono rimoorka naga soo jiidan doono haddii la yidhaahdo wixii wada hadal iyo dib u heshiisiin gobolka ku saabsan ay halkaa ka dhici doonto heshiis weynaha ee loogu talagalay dadka gobolka inay dhammaystaan kabacdina ay noqonaysa inaan dhammaystirno maamulkii goboleedka markaan soo noqono wixii kalena insha allahu taala dib u kala soconayna. Assalaamu calaykum. Horta safarkan waa safarkii lagu soo heshiiyay Addis Ababa in maartay la dhammaystiro heshiiskii wafdi ballaaran ma baxay madaxweynuhu hogaaminaya xubno sarsare oo maamulkii Jubbaland ay ka mid yihiin. Waxaan rajeynayaa insha Allah bidinaa kariim wax wanaagsan oo dhammaystira wixii hore loo gaaray inaan meesha ka soo fulin doono haddii Alle insha Allah. Ay qamal ma qaadana safarka iyo xubnaha laba bari saddex bari meelahaas. marka ma jira qorshe aad kula kulmaysaan waxa jira dad Kismaayo ka tagay oo maamul ka soo horjeeda waan la kulmaynaa cid kasta oo wax sheeganaysa waan la kulmaynaa insha Allah dhanka dawladda federaalka aad kala kulmaysaa dadka dabcan waa soo arkayna dawladda wasiirada iyo madaxweynaha kulliina soo arkayna rajeynaa cid kasta oo shaqo ku sayso